kulanka degdega ah oo baarlamaanka maamulka galmudug maanta ay ku yeesheen magaalada Dhuusmareeb waxaa shir gudoominayay gudoomiye ku-xigeenada koowaad iyo labaad ee baarlamaanka maamulka galmudug waxaana 89 xildhibaan oo ka tirsan mudanayaasha baarlamaanka maamulka galmudug mooshin kalsooni kala noqosho ay ka keeneen gudoomiyaha baarlamaanka maamulka galmudug Cali Gacal Casir gudoomiye ku-xigeenka koowaad Xareed Cali Xareed oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in maalinta berri ah uu si rasmi ah u furmay kalfadhiga baarlamaanka maamulka galmudug mooshinkana xildhibaanada laga aqbalay maalinta berrina cod la gali doono inaan ka cadeeyo maanta taariikhdu ay tahay 11 bishii 9aad 2018 inay soo gaartay mooshin ka dhan ah gudoomiyihii baarlamaanka galmudug mudane Cali Gacal Casir mooshinkaas oo soo gudbiyeen xildhibaano tiradooda gaaraysa 89 qodobadii lagu soo eedeeyay markaan eegnay oo aan fiirinay gudoonka waxaan isla garanay qodobadaas inay yihiin sharci una baahan in maaragtay uu iska difaaco baarlamaanka eedeyntaas loo soo jeediyay muddo 10 casho gudahooda ma aha 10 casho kadib waa 10 casho gudahooda waa 10 casho maalmo shaqo waxay noqon kartaa waqti allaale waqti ugu horeeya ee baarlamaanku diyaar u yihiin inay codka kalsoonida kala noqdaan saacada laga bilaabo mudane Cali Gacal Casir waa xubin xildhibaanada kamid ah mana haysto awood uu ku tafifalo maaragtay dhanka kale waxa uu sheegay in madaxweyne ku-xigeenka maamulka galmudug shaqada uu hayo maamulka gudashadeeda guddi loo saari doono waxaana hayaa mooshin ay soo gudbisay ilaa iyo 89 qof insha Allah taala oo saxiixan oo warqadooda aragna waxaan rajaynaynaa insha Allah taala wixii kale hadee processki kale iyo madaxweyne ku-xigeenka asagana oo gudbi doonaa wixii ka dambeeya hadii alla yiraahdo saas iyo processkiisa ku soconaysa insha Allah taala marka intaas ka baxno waxaan rabnaa hadee qaabkii guddiga doorashada gudoomiyahan inaan rintooda ku dhawaaqi doonaa guddiga doorashada sida loo soo qaban lahaa iyo doorashada qaabkii ugu dhaxeed processka madaxweyne ku-xigeenka asla barintooda ayuu bilaabaya asagana diyaar la yiraahdo sagoobta asagana guddigiisa halka ku qaban doonaa si asagana ma taqaanaa howshiisa loo galo insha Allah taala maalinta ku xigta wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh qaar ka mid ah xildhibaanada mooshinka keenay ayaa la hadlay TV-ga Universal waxayna ka warbixiyeen sababta ay u keeneen mooshinkan waxaan kale u sheegayaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo mudane madaxweyne ma kaafilayni kelmad shalay aad tiri laakiin wax aadan ogeynaan ku ogeysiinaya maanta Cali wuxuu ka tagay galmudug isku darkii labada baarlamaanada ex gobolada dhexe iyo galmudug oo la mideeyay bishii Abriil 8deedii 2018 ku ka tagay Dhuusamareeb 25keedna wuxuu ku la asagoon xil hayn 25kii bishii Juun wuxuu ku laabtay Cadaado uu tagay wax kasoo ku tagay iyo sababaheedii oo dhan waa la soconaa laakiin wax walba qof weyn iyo umursaba say wax ogyihiin uma sheegi mayna laakiin taariikhda is sheegaysa Nafisa Xirsi Maxamuud Universal TV Dhuusmareeb